رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير وهلي تليان عيدمada xooga dalka sareeyo guutooda waa Yuusuf Raag ayaa xerada tababarka ciidamada General Gordon ku booqday ciidamo ka tirsan xooga dalka oo loo tababaray ka qayb qaadashada howlgallada argagixisada dalka looga saarayo. Ra'iisul Wasaare Khayr oo mahadceliyay macallimiinta xerada General Gordon ee diyaarinaya ciidamada tababarka heer gabagabo u maraya ayaa askarta ku dhiirigeliyay inay si wanaagsan u dhameystaan tababarka si ay ugu biiraan ciidamada dalka cadawga ka difaacaya. ciidamadan ayaa marka loo dhameystiro tababarka waxay qayb ka noqonayaan ciidamada xooga dalka ee ku sugan fariimaha dagaalka ee qabowga iyo cadceedda u taagan ilaalinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo ciribtirka argagixisada duulaanka kuwa jiritaanka ummadda iyo qaranimada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ciidamada ay yihiin rajada ummadda Soomaaliyeed lagana doonayo in ay xoojiyaan guulihii ay hore u soo hoyeen ciidamada Soomaaliyeed si looga mireeyo himilooyinka ummadda Soomaaliyeed. jiddeer aad ka horeey jidkaas oo jid badan laakiin idinku aad ku soo bareerteen si aad u hagaajisaan mustaqbalka dadka Soomaaliyeed waxaad furaysaan naftiina maskaxdiina wiilal idinkoo kala iyo gabdhaha idinka horeeya oo shaqo aad u weyn qabtay meel wanaagsan soo gaarsiiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa soo laabatay sharaftii uu lahaa magacii uu lahaan jiray qiimihii uu lahaan jiray ilaahay ka sokow idinka iyo taliyayaashiina ku mahadsan waxaad xaq u leedihiin in la idinka warqabo la sii hagaajiyo xuquuqdiina waana yeeli doonaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan idinkaga mahad waxaa hadda muuqata in shacabka Soomaaliyeed ay ku niyadsan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inay aamin ku qabaan inay cadawga ka adkaateen inay aaminsan yihiin in dib soo dhamaanayo inay isbedeleen wixii hore laga aaminsanaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu isku toosnayn tayeysnayn intaas waa laga baxay waqtiga yaroo haray marka oo ka haray shaqada ay wadaan inta ka soo afjaraysaan cadawga ummadda Soomaaliyeed afeeyay waxaan rabaa inaad sii adkaysaan adkaysiga sii hubisaan guusha soo dhow waxaan idinku soo salaami doonaa aniga iyo madaxweynahaba meesha aad u socotaan waa idin mahad celinayaa waa idin duceynayaa ilaahay ha idin samata geeyo ilaahay ha idin guuleeyo waa mahadsantiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato xoogga dalka Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya dadaal xoogan ugu jirta dhismaha ciidamada xooga dalka si ay u hantaan guud ahaan amniga dalka waxaana ciidamada xooga dalka u gudanaya waajibaadka ka saaran qarnimada ay guulo wax ku ool ka soo hoyeen howlgallada nafbadbaadinta ee shacabka Soomaaliyeed looga dulqaaday kooxaha cadeysay daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed.